waxaa maanta magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka lagu soo afmeeray shirwanihii 17aad ee hay'adda IANA oo iyadu kulmisa masaajida badan oo ku yaala waqooyiga North America. shirkan oo muddo 3 bari ka socday masaajidka weyn Abubakar Sadiq isla markaasna sanad kasta lagu qabto ayaa waxaa kalkan diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa midnimada wadajirka iyo wadatashiga dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida. shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo Soomaaliyeed aad u tiro badan oo isaga kala yimid qaar ka mid ah gobolada Mareykanka iyadoo sanadkan lagu doortay maamul cusub oo hoggaanka kala wareegay maamulkii hore. maamulka masaajidka Abubakar Sadiq ayaa u mahadceliyay dadkii soo qaban qaabiyay kulankan. anigoo ah maamulaha masjidka Abubakar Sadiq ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota waxaan aad ugu faraxsanahay shirkii 3 maalmood ee ka socday masaajidka ay qabatay hay'adda IANA inuu si guul ah ku dhamaaday. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Umar oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kana mid ahaa maamulkii hore ee hay'adda IANA ayaa duco ku kabay maamulka cusub. boorkii labada teeram la doortay oo uu ka dhamaaday xilligii boorka sida qaanuunka qoraayo oo wareejiyay xilkii kadibna ku wareejiyay boor cusub oo uu hogaaminayo Sheekh Maxamed Mursal xafidahullah iyo tiimkiisa. ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala dalkeena nabad ilaahay nooga dhigo. Sheekh Xasan gaar ahaan oo ah directorka ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadii ha geeyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala juhuudda u bixiyo allah ka abaalmariyo. boorka cusub ilaahay subxaanahu wa tacaala ha toosiyo. ilaahay ha kaalmeeyo. runtii halkan waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto oo aan u mahadceliyo boorkii hore ama shuuradii hore ee soo haysay maamulka IANA oo shaqo fiican soo qabteen. runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. jazaahumullahu khayran. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. magacaygu Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Xagalle waxaan ka imid magaalada Boston markas waxaan matalayay Boston Islamic Center Taqwa. maanta halkan shirkii IANA runtii wuxuu noogu dhamaaday si aad iyo aad u heersareysan u wanaagsan. agaasimaha fulinta hay'adda IANA Sheekh Xasan Dhooye ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay. baan u mahadcelinaynaa waxa halkan ka dhacay shir socday 3 bari oo laga hadlayay dacwada North America iyo sida lagu horumarin lahaa. waa shir sanadla shirkiisii 17aad weeye. arrimo aad iyo aad u muhiim ah laga hadlay bayaan waa laga soo saaray sidoo kalena waxa ka soo baxay resolutionno iyo go'aano ku wajahan dacwada North America iyo guud ahaan dacwada Soomaaliyeedba. markii uu shirku soo idlaalay ayaa waxa bayaan ka dul istaagay Sheekh Cabdalla Al-Fadli. waxa maanta si habsami leh ugu soo gabagaboway masaajidka weyn ee Abubakar Sadiq ee magaalada Minneapolis Minnesota gobolka shirkii 17aad ee jamciyadda Soomaaliyeed ee waqooyiga America. shirkaas oo socday bisha July 27keedii ilaa 29keedii 2018. shirka sanadkan waxaa looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin sidii loo horumarin lahaa dacwada iyo dadaalka ay wadaan maraakista islaamiga ah ee Soomaaliyeed iyo sidii ummadda muslimka ah gaar ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee qurbaha joogta loogu dhiirigelin lahaa sidii ay diintooda ugu dhaqmi lahaayeen iyo arrimo kale oo badan oo khuseeya ummadda muslimka ah gaar ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka. kulankan ayaa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo ay ku soo badanayaan wadamada reer galbeedka dadka ku bahoobay islaam nacaybka iyadoo dawladda Mareykanka ay dhawaan ka mamnuucday inay soo galaan dalkeeda 5 wadan oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Dakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka.